Maxamed Aadan waxa uu xilligaani la taahaya dhaawac ka soo gaaray qaybta dambe ee madaxa. Waxa uu ku soo dhaawacmay dagaal ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose, gaar ahaan Sabiibi Caanoole, kaasi oo u dhaxeeyay ciidamada dawladda iyo ururka Al-Shabaab. Xilliguu Maxamed dhaawacmay ayaa la xaqiijiyay inuu ku sugnaa beer halkaasi ku taalay oo uu waardiye ka ahaa. Lacagta beerta uu ka qaadan jiray ayaa la sheegay inay gaarayso 20,000 shilinka Soomaaliga. Marka aad si aad u fiiriso kuma filna reerka 20,000, balse juhdi dadaal badan waxa uu ku bixinayay si reerkiisa u maareyn lahaa. Qadarta Allah ayaa qabsatay. Dhaawacani waxa uu saameeyay noloshiisa. Waxa uu ku soo ururay sariirta. Reerku uu ka soo jeedana waxa ay yihiin qoys dan yar oo aan awoodin in qarashaadka ay ka bixiyaan isbitaalada. Waxaa loo soo qaaday magaalada Muqdisho si xaaladiisa caafimaad wiilkan reerkan wax lagala qabto, balse dhaqaatiirta ayaa ku wargelisay reerkan in xaaladiisa caafimaad dalka wax looga qaban karin. Ay Faadumo oo la hadashay warbaahinta Daljir ayaa sharaxaysa xaaladda Maxamed Aadan xilligan uu ku sugan yahay. wiilka Maxamed Aadan Abu Koraal yiraah amarkan ilaaha u khori beerahaas jiifi 20,000 isku soo waardeeyahay beer isku jiifi xabad wiifta ku dhacday ee owaada wixii noob soo kaalmay kartiin noob soo kaalmay dagaal ma socdo xabad wiiftada baadiday ka socotay beerahay oo tagtay baadidu waxa ay Sabiibi Caanoole asku dhashtay meehaas joobi beerahaasna jiri beera baadideedas jiri ummad islaamka wixii dalka dibadda joogo. Aabaha dhalay Maxamed Aadan oo dhankiisa la hadlay warbaahinta Daljir ayaa ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed inay gacan ku siiyaan wiilkiisa xaaladiisa caafimaad sidii dalka dibadiisa loogu qaadi lahaa. oo anigan dhalay Maxamed Aadan Abu Koraal yiraahdo ayaa macnaa aga dhacday madax xabad wiifta asoo macnaa dhax jeefo beerihiis macnaa miciisa shaqaalnimo beer oo macnaa oo waardi oo ka yahay asoo jeefa ayaa xabad wiifta meesha ugu tagtay ayaa macnaa madax ka gashay. asi ahaatee waa soo qaaday meesha macnaa oo ay ahaatee oo macnaa aga dhacdan waxay ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose Sabiibi Caanoole. waa soo qaadna waxaan keenay macnaa miciisa la igu soo caawiyay in macnaa miciisa isbitaal la keeno afgooyan soo marsii afgooy waxay dhahan macnaa wax kama qaban karno. waxaan nimid macnaa miciisa magaalada Muqdisho waxaa ka mid ah isbitaal Madiina soo marnay wax kama qaban karnay dhahan. waxaan soo marnay Banaadir wax kama qaban karnay dhahan. waa gudubnay degferan tagnay degfera macnaa xoogan alqaabili kadibna adan waxay dhahan macnaa miciisa wax kama qaban karno macnaa wixiisa waxay ka mid tahay macnaa miciisa dhaawac oo ku yaal xabad ku jirto waxay ay asmudan yahay in macnaa miciisa oo loo gudbo macnaa banaanka dibida. asi ahaatee in badan ay macnaa miciisa aan la jiifay har iyo habeen antan macnaa aan la hurdeyno macnaa miciisa oo aan isla soo jeedno oo tan had idinkan oo idin muuqato macnaa aad arkaysan waaye dhawaatada macnaa waqtiga ka asaga haysato taasa ka mid ah xabadda asiga wuxuu ahaa koodii hore aan macnaa dib u ceshtay macnaa nin oo macnaa miciisa maqan oo hawada ka maqan oo macnaa oo dhimirkiisa oo macnaa maqan in badan macnaa markii oo isbitaalka la geeyay dhimirkiisa markuu soo laabtay kadib waxay dheen macnaa kama saari karno macnaa miciisa xabadda waxba macnaa uu qaban karno intaan ka badan wax uu qaban karnay. waxaan macnaa oo baaqaan macnaa ka codsanaya dadka inta macnaa maqalkay muuqaalkay macnaa miciisa ugu jeedo macnaa na arkaysa ndaabihiisa na dhageysayso. waxaan macnaa miciisa aan ka codsanaya in macnaa miciisa wax allaal wixii ay os Ilaahay ka soo qaadayo in macnaa miskiinkan oo loo qaado macnaa bukaankan oo loo qaado banaanka oo wax lagu qaban karo oo gudaha wax lagu qaban karin wax allaal waxay macnaa miciisa talooraad isu sameeyaan karaan in ay isu sameeyaan. la markay waxa ka mid ah macnaa miciisa furo 8 69 66 furo 8 69 66 inta badan dagaalada ka dhaca Soomaaliya saameynta ugu badan waxa ay ku yeelataa bulshada Soomaaliyeed. ilaa ay haddana ma jirta cid wax iska weydiisa dhibaatada shacabka. Cabdiraxmaan Waabir, warbaahinta Daljir, Muqdisho. adeega mareeg Swipe account ee bangiga Salaam waa adeeg hal akoon oo guud kugu xiraya akoono kala duwan. waxa uu ku suurtagelinayaa lacagta akoomada hoose ku dhacday inay si toos ah ugu wareegto akoonka guud adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilliga aad u dooratay.